xigmad dahab ah fahanka falsafada risqiga iyo shaqada marka aad dadaasho allah ayaa kuu fududaynaya wixii aadan awoodin bal ka fikir laba qof oo isku dadaal ah midna wuxuu helaa nolol fudud fursado isdabajoog ah halka midka kale uu daalo waxna ay isbedelin maxaa khaldan ma shaqada mise waa fahanka falsafada risqiga maanta waxaan kuu furayaa sirta qur'aanka oy dad badan aysan fahmin risqigu maaha lacag oo keliya waa wax kasta oo allah ku siiyo caafimaadkaad haysato dadka wanaagsan ee kugu xeeran xasiloonina aad dareemayso haddaba qur'aan kariimku wuxuu si cad inoogu sheegayaa inuu allah risqa bixiyo haddaba laakiin sidoo kale maxaa lagaa rabaa adigu waa inaad dadaasho marka su-aashu waa sidee laysku keeni karaa qadarka iyo dadaalka maanta waxaan ku sharxi doonaa 5 tusaale oo dhab ah kuwaas oo bedeli kara aragtida nolosha iyo fahanka falsafada risqiga iyo shaqada bal aynu bilowno tusaalaha qur'aanka ku jira oo aad ula yaab badan risqigu waa la qoray qof walba qaybtiisu helaya tusaalaha qur'aanka qisadii nebi muuse markii uu ka cararay masar shaqo muu haysan lacag muu haysan meel uu seexdo muu haysan laakiin hal ficil kadib caawinta labada dumar allah wuxuu u furay shaqo hoy xaas adiguna maanta waxaad la kulmi kartaa fursad yar oo beri noqota albaabka risqigaaga mararka qaar hal albaab oo wanaagsan ayaa fura albaabo aadan filanaynin waxa kuu qoran ahaantii way ku iman doonaan xitaa haddii aad malaynayso inuu kaa fog yahay laakiin hadduu qoran yahay maxaa loo shaqeeyaa tusaalaha labaad tawakulka iyo sababta qisadii maryam bintu cimraan markii ay foolanaysay allah wuxuu ku yidhi geedka ruux su'aal maxay haweenay tabar yar u ruxaysaa geed weyn jawaab allah wuxuu rabaa ficil lagu daray tawakul haddii aad tahay arday dadaal badan samee duco ku dar guulna sug qofka iska fadhiya ee leh allah ayaa isiinaya waa sax laakiin geed ma tihin meesha ku mudan ee dhaqaaq haddaba xigmadda dahabka ee qodobka ku jira allah u awoodaa inuu wax walba ku siiyo ee wuxuu jecel yahay inuu arko dadaalkaaga sababtoo ah allah wuxuu rabaa dhaqdhaqaaqaaga risqigu waa la qoray laakiin ficilkaaga ayaa runaantii fura haddaba xaqiiqada adag ee dadka badankooda runaantii ay aqbalin tusaale lacagta badan iyo farxadda farqiga u dhexeeya iyo xiriirka u dhexeeya waxaad aragtay maanta dad lacag badan laakiin walwalsan isdilaya isdeldelaya dad hanyar haysta wax yar haysta laakiin faraxsan islaamku wuxuu leeyahay hodantinimadu waa qalbiga qanacsan waa muhiim cilmiga casriga ee maanta wuxuu caddaynayaa siyonsku lacagta farxad joogta ah ma keento haddaba risqi aan barake lahayn waa culays qarsoon laakiin sida oo kale sidee loo helaa barakada tusaalaha sadaqada iyo taqwada qur'aanku wuxuu ina leeyahay qofkii allah ka cabsada wuxuu allah siiyaa uu risq ka siiyaa meel uu ka filanaynin haddaba waa muhiim inaad sadaqada bixiso allah ayaa ruxad kuu furaya fursad cusub noqo qof xaalmirada ilaahay ku kalsoonow barakada shaa way ku iman doontaa deeqsi noqo dadka wax siiya oo wax la hura haddaba xigmadda xagga muhiimka ee kasoo dhex saari karno waxa aad bixiso ma lumayaan runaantii ee waxay kuu noqonayaan albaab kale kuu furagan oo barakaa hadda sirta ugu weyni waa tusaalaha shanaad tawakulka iyo dadaalka nebigu
wuxuu yidhi ku xidh geelaaga kadibna allah ku kalsoonow aqalkaaga soo celi oo quful kadibna allah ku kalsoonow tani waa sirta shaqo oo keliya waa dadaal tacab tawakul oo keliya waa riyo labada marka la isku daro waa nolol degan iyo guul haddaba xigmadda muhiimka ah een kala soo bixi karno waxa weeye marka aad dadaasho allah ayaa kuu fududaynayaa wixii aadan awoodin haddaba risqigu ugu fiicani waa kan qalbigaga dejiya risqi wuxuu ku jiraa gacanta ilaahay kuu doonu siiyaa kuu doonu ka yareeya haddaba insha allah waxaan kuu rajaynayaa inuu allah kuu waasiciyo risqigaaga sidaa iyo kulan dambe oo wanaagsan